السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan gabi ahaantii isugu nimi xarig jarka munaasabada hoteelka Moonlight Deeqsi ee magaalada Boorama laga furay. waxaan rajaynaynaa hoteelku inuu ahaado hotel ka duwan hoteelada kale laga helo adeegyada nooca doonanba ahaadaan ee cunooyinka iyagoo waliba tayo leh. intaan markaa barnaamijkeena inaan guda galin waxaan ugu horreyn ku soo dhaweyn doonaa mulkiilaha hoteelka Moonlight Deeqsi إبراهيم شيخ حسن وقاس فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما هذا سكاله ما أنت نو سورة قليي إن أنا محردان عصب مقالة بالعدي يونا جدي سو شيدين إسا عروف فرنو بلشدة قبل كعوض الجارهان دقمة بورما وحكلون سيجارة وقوم هاد علينا معمول دقمة بورما ما يركيني يدمان حلمان هذا هالكن شوجا salaadiinta uqaasha cid kasta oo ka soo qayb gashay xafladan aad baan idinku mahad celinayaa waxa kale oo aan halkan rabaa inaan idinku cadeeyo hoteelkan cusub ee idin furay restaurantkan cusub ee idin furay waa restaurant idinku adeegi doona sida ugu quruxda badan leh ee aan bulshadeena ku qancin doono anigoo waliba qaabka aan u furayana aan decoration ahaan ka soo qaatay dhulkii aan ka yimid ee qurbaha oo ah runtii meelo fara badan oo aad u qurux badan oo dadkeenu ay markay muraayadaha ka daawadaan ay jecel yihiin inay tagaan ayaa waxaan aad u jeclaystay inay magaaladeeni Boorama bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo cuntadeediiba iyadoo oo aad u wanaagsan aan u furno hoteelkan wuxuu idin sameyn doonaa hoolkii aroosyada oo heli doonaa wuxuu leeyahay qol kale oo gaara barxadii oo aad u qurux badan runtii waxaan bulshada gobolka Awdal degmada Boorama dhammaan Soomaaliland oo dhan aan si sharaf leh ugu soo dhaweynayaa inay ka soo qayb galaan noogu yimaadaan aan si fiican u soo dhaweyn doono hoteelkaas waa idin furay hadal badan haan ma buuxshay ku soo dhawaada dhamaantiin markoowaad ilaahay baa mahad iskale mar labaadna waxaan halkan uga mahadnaqaynaa bulsho weynta iyo cid kasta oo ka soo qayb gashay salaadiinta iyo cuqaasha iyo dhalinyarada mulkiilaha hoteelkan sameeyay oo qurba joogana waxaan leenahay horta ilaahay ha u barakeeyo waana meheradi noo soo korodhay qurba joog baryahan dambe waxaad moodaa inay maalgashi fara badan dalka gashanayaan mar labaad iyo mar saddexaadna waan uga mahadnaqaynaa hawlaha ballaaran ee ay ka wadaan hoteelkan Moonlight Deeqsina waxaan filaynaa in ilaahay hadduu yiraahdo uu isagana ugu daro arsaaqad inuu ka helo innagana uu inoo soo kordhiyey nidaam cusub ama hodheel cusub kaasi oo looga baahan yahay bulshaduna inay isticmaalaan oo adeegyada iyo cuntooyinka kala duwan iyo hoolka uu soo kordhiyey ay isticmaalaan oo adeegsadaan kullay degmadana waxa ka soo gali doona cashuur waxaan rajaynaynaa in maalgashigaasi uu noqdo maalgashi isaguna uu ka faa'iido innagana inoo soo kordhiyo adeegyadaasi aynu u baahannahay marka waxaan leenahay marka Allah barakeeyo talabaad waxa weeyaan bulshaduna waxa u baahan tahay horumarka qofba meel buu kaga jiraa marka qof kasta oo degmada wax ku taraana waa qof ku suntan taariikhda iyo horumarka degmada waxaana leenahay ilaahay ha u barakeeyo waa inaynu garab istaagno waa inaan adeegyadiisa isticmaalno annaguna waxaan ka mid noqon doonaa macaamiisha adeegsata hoteelkan waad mahadsantihiin hoteelkuna wuu inoo furan yahay waxa weeyaan kulley hadalka murtidiisu waa intaa cid kasta oo degmada iyo gobolka wax ku soo kordhisa waan u ducaynaynaa hoteelku waa hoteelka casriga waa hoteelka laameydii bartanka ku yaalla meesha qiimaha leh ku yaalla sidaa maayarka iyo mulkiiluhu sheegeen annagu waan u ducaynaynaa aad baan ugu ducaynaynaa waxaan leenahay hambalyo ma sha Allah baanu leenahay alxamdulillaah ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waxa qiimo gaar ah uu leeyahay nin kasta oo qurba ka yimaada oo wax soo kordhiya oo wadanka wax ku soo celiya qiimo gaar uu wadanka ugu fadhiya waan u ducaynaynaa Ibraahim Allah barakeeyo hoteelkana Allah kor u qaado waa hotel wiil dhalinyaro ah oo qurba jooga oo waaya arag ilbaxay inoo keenay waa hotel dhalinyaro ilaahay waxa leeyahay kor u qaadaan leeyahay ilaahay kor u qaadaan ma sha Allah baan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa alxamdulillaah baan leeyahay